manhajkan waxbarasho oo ku saleysan dugsiga koowaad ilaa afaraad ayaa wasaaradda waxbarashada ugu talagashay in lagu jiheeyo waxbarashada asaasiga ah oo ay helaan ubadka Soomaaliyeed waxaana manhajkan maanta nasiib u yeeshay in loo qaybiyo ardayda fasalada koowaad iyo afaraad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Maxamuud Mire ee magaalada Muqdisho agaasimaha waaxda dugsiyada ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Muuse Maxamed Caraale ayaa sheegay in meel gabagaba ay marayso qaybinta manhajka ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waa manhaj si qurux badan looga soo shaqeeyay oo la soo qorsheeyay weeye tayadiisu heer sare weeye way arki doonaan ardada iyo cid kasta maxaan ku raad zaa'ir ah ama soo booqata maxaan ku raad dugsiyada ay dawladdu u qaybisay manhajka sidaas darteed waxaan leenahay waalidiintu ha ku fara adeegto manhajkaas bugaagtaas ardaydu ha ku fara adeegto macallimiinta iyo gudiyada iskuulada ka shaqeeyo oo dhan oo waxbarashada la shaqeeya iskuulka waxaan doonaynaa sanadka dambe ardaygan markuu dhammaysto fasalkan uu ka baxo ardayga ku xigo sanadka kale imaanaya in loo reebo isagoo hagaagsan oo qurux badan fasalka kale loo sii qaybiyo oo kursiga uu bannaynaya maamulaha dugsiga Maxamuud Mire Dr. Khadiija Aadan Daahir ayaa u mahadcelisay madaxda wasaaradda waxbarashada oo iskuulka soo gaarsiiyay manhajka waxbarasho ee la diyaariyay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan maanta leenahay maanta waa maalintii noogu farxadda badneed oo manhajkeennii ugu horeeyay class 1 ilaa class 4 naloo keenay waxaana leenahay waxaan idin rajaynaynaa guul annagana farxadeena maanta lama soo koobi karo waana la wareegnay manhajkii waxaan ku haynaa gacanta bari wixii ka bilowda ardada waxay dhiganayaan manhajka wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Faysal Cumar Guuleed ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay ku dadaalayso tayeenta iyo sare u qaadista waxbarashada dalka iskuulkan oo iskuul taariikh kula ah iskuulada Soomaaliyeed waxaan marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aan u sheegaynaa in ay hadda ka bacdi ummadda Soomaaliyeed meelaha laga galay waxay ahaayeen manhajka in maanta ay leeyihiin manhaj midaysan oo ay soo diyaarsay dawladdu si fiican iskuulo ay leedahay dawladdu ay gacanta ku haysan ay jiraan oo 34 iskuul ah iskuul kamid uu yahay saas aawadeed ummadda shacabka Soomaaliyeed meel kasta aan u joogan waxaan leenahay dawladdii way shaqaysay mirihii dalkii iyo tacabkii aad gelisana way soo baxeen waxaan markaa idin sheegaynaa in dawladdu ay manhajkii qaybisay ardaydiina ay gacanta u gelisay Muxyidiin Macallin Cabdulle SNTV Muqdisho.